dhageystayaal daawadayaal kulantoon wanaagsan waa bahda Digo Films oo isku xiran oo idin leh marka hore salaam ay gudoomo salaantaas oo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta kadib waxaan maanta diyaar u nahay waa barnaamij cusub oo soo kordhay magaciisa loo caweyskii caawa waxaan diyaar u ahay waxaan idin diilay anigoo ah Sakariya Sabriyo ayuu ah nadal fashiya anigoo ah Nafil aka garkatag waa maasantii dhamaan waxaan idin leenahay soo dhawaada waxaan diyaar u nahay in akhrino كومنتاش أمام مسجدنا وصل دري ومعنا كومنتاش ما بحشي فيديو صار دقني أنا أخذنا أصحابته أنكم حسنا شوت أوت أنك زمانه عندي أروح معك أتوقع رأي وشوت أوت كانوا وقع لسنا وقول شرفت بدن أصحابته إن أنت نوصل درتي وحنا عندي أروح هاي إن أنت تابته وحنا وصل دري جمعالي جان قولي سأو تغنين جمعالي وحير دمان وأنا أخريه كومنتيادا إضافة واحد يصير درين وحنا رواية دان وإني رالجرين كبحنا دمان ديجو فيلم سكوا حنا وحنا رالجرين وين كبحنا صار رواية وجود بيسأل صار دقني كومنتي وقع رأي وحنا قاعدنا ولكن نافل سأو تغنين اوكي اصحابي horta magacayga Navel ma Nafil waa magacayga saxaya dad badan magacayga aqoon garkay u dhahan dadka meesha ku jira wiilka garka dheer ma leedo ani magacayga waxaa la Nafil ama Said garka dheer iga dhaafa gabadha waxaa la Hibaaq Said gabadhaydu waa magacayga wadataa Said ordaydu waa insha Allah anyways Hibaaq waxa soo qortay wiilkan qofta balansanaya waa ka baqa waxa dareema inuu aad u kulul yahay yaa igu raacsan horta walaashay macaan commentiga waa ku mahadsan tahay aniga horta aad ma kulli ana horta wiil yar miskiin ah fanta waxa jeclaan ani mataqaana inaan aqoonahay fanta aba ma dhibanayn sabab dhibanan waxaan jilano ama waxyaalaha soo jilano wax ka rabta la jira waqti qof kasta role u leeyahay role loo dhiba waxa la hebelo rolkaaga hadduu ina qof ku jirisid ama qof ku jirisid ba ku xirantaa aniga roolka badan la isoo dhiibo ama igu soo aadaan roolal oo xogaa kuleel aan ku jiraa ma fahanti waxyaalaha anaga jiro waxyaalaha maarta dad noo soo dhiibeen way ma fahanti waxyaalaha dhacdooyin oo rumo dad anaga kala ku dhaceen ma baahnaga banaanka soo dhignaa commentiga xiga ayaan qaala channelkan waan ku cusubahay waana ka helay fikradiina hore u socda walaalayaal aad baan kaaga mahadcelinaynaa sida sharafta la noogu soo qortay qoraalkaaga maasanta comment saddexaad wuxuu naga soo gaaray dajiyaha gabdhaha degan kulay gabdhaha degan ayaga deganaayeen kuwa kacsanina dajisa loo baahnaa wuxuu yiri kuwa riwaayadan jiro waan ka helaa waad maasanta anaga sidoo kale waan ka helaa waxaan ku leenahay soo dhaw 100 mar waad ku maasanta commentiga اوكي اصحابي كومنتيغا waxaa soo qortay gabadh la dhaho asal dalad gabadh waxa dhahay Nafil wallahi waan ku aaminsanahay naagaha iyo nimanka ku caayo adawaaga cagta hoos thank you so much about horta in comment noo soo qoro way iska fiican tahay waana jecelahay noo soo qoro wixii ninka maskaxdeena iyo waxa naga aaminsantiin bay nooc cadeyn هاي كومنتيga laqaniyo loo riwaayadan ma fiicna dhaqankeena iyo diinteena ilaahay ka baqa subxaanallah insha Allah sida noo baanisay ku yaqaato Allah naga dhigo maadsantaa walaal ama santaa commentiga ama waraaqada ama bashada xigta waxay naga soo gaartay Sumaye Maxamed Irnoran waxa lagu xantaa waa dad dhaqan xun iyo naago wada shaxada waa ma santaa taas oo run waana been shakal Irnoran 100% waa dad aad u wanaagsan ma santaa commentiga qurux badan okay commentiga noo soo qoray aga garoobta iyo la qabo maahan qaarkood waxaan ay u keenan in ninkooda asii ka wada naga la qabo ayagoo la qabo oo nin qabo oo guri u degantaa oo meher ku xiran yahay waalkana horta taas waa ka diiday because naagta haddii la qabo oo nin qabo oo meher ku xiran yahay ilmaha ama ninkeedu ama hadalo ama ninka la hadalabe ilmaha waxa la noqon karo sunaagta meena ku xiran wana mahadsantahay commentiga waa ku mahadsantahay thank you so much princess ahlan subhanallah anoo la qabo yaan kala damcin anaga walaal anaguna la qabo ma qaraabano riwaayada wax u jiray oo wax dhacay aan ka wadnay saasay waa kaga mahadcelinayna ما تصدق كومنتيجا هو كومنتيجا يويا كبرناي يعني أخريه وحول يقصو قاري تكتوريس السمية جراد وهي تريويل كجودة لبرايا حوجات دم أيو قلي كمهل وحول يقعن أيه لو سمية إسلا ما يقعنوا مسمينين ساسي تانو ما سنتها وراء قروح بدن وحن كلنا هاي كانوا كل جينا هنا ضدك حمسان أدويس ثانك يو كومنتيجا قروح بدن اوكي كومنتيجا وحكي ما ذي قبل سومالية فهم محمد الله فهم محمد
meel kastaa joogta aba waa mahadsantahay waqtigaana sisi commentiga noo soo qortay ama opinionkaaga noo soo dirtay dhahday lacag miyaan ninkayga ku bedelana walahi waxaas waa qalad qalad ma fahanti laakiin waxaan kuu sheegaa fahmo waxa dhacay wey ma fahantaa baa macaan horta gabdhaha soomaalida mataqaanaa qaladkooda in la sheego way necab yihiin way ka dhintaan ma fahanti anaga badanaa riwaayadeen channelkeena haddaad dib ugu laabato fiirisid riwaayadahan jilano ama ani ahaan jilayo waxaan ku jilayaa nin gabdhaha baadilayo ama gabdhaha dhibayo taas it doesn't mean ani inaan ahay oo gabadh dhibayo ma dhibayo laakiin qof gabadh soomaaliyeed hawl waxay ku dhacday baan ka turjumayaa ani gabdhaha soomaaliyeed badankooda way igu mahad celiyaan waxay dhahaan wiilkan inkastuu kul yahay wax jiru ka hadlaa wax jiru sheegaa aniga laftigiina gabdhow marka ininka ceebtiina lasoo saaro ha ka xumaanina hana dhihina hana caayina hanagu dardaar hanaga sheeganina because anaga aniga bulshada soomaaliyeed wax ka jira le ana ka hadlaa moogtiin ani sheegaa gabdhaheena soomaaliyeed waanu idin jecelahay walaalaheenaa tihiin mar xaaskeena tihiin mar hooyadana tihiin wax kasta noo tihiin laakiin ceebtiina marka lasoo saaro ha ka xumaanina hana wax hanaaqina hana habaarin hana caayina naga dhaafa madaxgalka badan joojiya haddaadan sameynina qof kala sameeyey haddana arrintan riwaayadan aan soo jilay waa riwaayad run ah gabadha ku dhacday wiil gabadh isqabay ku dhacday wuu ka tegay lacagay ka dooratay bla waxay bilowday nairobi dhaqanka ka jira qofna ma loo sheegayo nolol wax lagu xanto waxoogaa ay jecel yihiin maxaa dhihi jiray baasha barxisada anaga jecel waa ogtiin anyways ha ka xumaanina markaan gabdhaha wax naga sheegno because wiilasha waa sheeganaa ininka keligii maxmay naga sheegno ayaga waa sheeganaa qof kasta hawl marka arrin naloo soo dhiibo oo sheeko idea naloo kena idea saan ani uma soo jili kadib hadday noo cunto waan jilanaa badanaa ideenka qaadanana waa ideyooyinka bulshada ku saabsan ceebtiina waxoogaa ka taataabano ha ka xumaanina ninka xarfaayaal iska dhigay ninka labsiina walaale saas maa arrintee intiga waxaa loo akrinaya madra asal dhalad maasha allah noolaada asxaabey waa comment qiimo leh maasha allah mahadsanid abaay macaanto sidoo kale noolo adigana waxaan u malaynaa gabadha sadaa inay soo martay gabadha akhriya waa hadaa gabadhaas walaa maasha allah abaay macaan mahadsanid waa mahadsantahay waxaan ku qormar waa isku jecel ma dhihi jira garsadku waa isku jecel kulligeen isku duwan oo ku jecelnaa abaay aad mahadsantahay commentiga aan soo xasuusiyay barnaamijka caweyska caawa waa waqtigana gabagabo nagu haya insha allah afarta comment ka gaarnaan akhrineynaa balan waxaan kaga qaadnaa barnaamijkeena oo barnaamij taxana ah oo macnaha siduusan commenti kulmaka dhinacyo badan oo nataabo doonaa waana waxaan idin leenahay la socda oo nagu xirnaada oo commentiga iyo shareka iyo lightan hala badiyo ma garateen soo dhawaada mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay soo dhawaada anigoo isku xiran oo abaada Digo Films maasantiin ninkan soo dhaweeya asxaabta horta waa dhoodiin gurigii minanka mininkiin leeyahay waa midhi jira xamka minanka mininkiin waa midhi jira anyways waa dhoodiin waan soo dhaweynaa asxaab walahi ninka kaliya laa waan jeclaa walahi bilaatuna waa inagu tusta walahi walaalaha Soomaaliya meel kasta joogtiin nabadiina nolol waa inagu tusta I love you guys meel kasta joogtiin ama Soomaaliya joog ama Nairobi joog ama Garissa joog ama qaxootiga joog ama meel dhaba joog Alta Joseph nadar horay u socdo thank you very much walaashay qaali alta kalmiya anaga aan gabadh walaashay waaye shamaha ka wada macaa alta Joseph dadka asmaarkino way Soomaaliya san kasii dambeeyo macnaha 2019 lagu jira iska dhaaf commentiga xiga waxa akhrinaa saxabadan walaashay Leylo America saxaab shidan dad sharaf leh Saddam iyo Nafiil Leila America horta Leila America gabadha nagu xiran waa ifri kaliya soo galina waa ka comment ka soo baxda aba Leila America meel kasta joogto waxa afka waa maasanta wallahi bilaatuna dadka nagu xiran oo meesha ka dhex muuqaaya qalbiga nooga taa si qaas commentiga xiga waxa akhrinaa saxabadan walaashay Leylo America saxaab shidan dad sharaf leh Saddam iyo Nafiil Leila America horta Leila America gabadha nagu xiran waa ifri kaliya soo galina waa ka comment ka soo baxda aba Leila America meel kasta joogto waxa afka waa maasanta wallahi bilaatuna dadka nagu xiran oo meesha ka dhex muuqaaya qalbiga nooga taa si qaas ku taageerna waa maasanta oo ka ilaaba ku jecel waad ku mahadsantihiin asxaabta inta commentigeena dhageysatay waxaan leenahay inay comment kale afraad noo reebaan ama mid saddexaad commentigana ka soo bixiya asxaabta qaaliga aan si fiican idin aragno commentyaasha soo qora si aan adikana aan reaction kaga bixino ama yani reply saa u taqaaniin
waxaan leenahay anigu isku xiran dhammaan Digo Films nabadiin iyo nooli kulanto waad maasantii dhammaan bahda Digo Films isku xiran oo idin leh nabadiin iyo nooli kulanto amaana la amaan rasul inta groupka ama ku xiran channelkeena waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad naga suga filmaan khatar soo socdo waxyaabo badan oo kala duwan waxaan leenahay adika nagu sii xirnaada nagana war suga qof alaale qofka fiidiyogan arkana si share gareeyo macnaha umada kala gaarto hal si share gareeyo khayr badan ayaan idin rajaynayaa dhamaantiin wa salaamantiin wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh